kulan ballaaran ee wada yeesheen cuqaasha gobolka Togdheer iyo qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda Soomaaliland ugu horeeya wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Maxamed Yuusuf Cabdi iyo wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland Salebaan Cali Kore wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf iyo sidoo kale barasaabka gobolka Togdheer kulankan ayaa ka qabsoomay xarunta maamulka gobolka Togdheer kulankan ay wada yeesheen cuqaasha gobolka Togdheer iyo wasiirada iyo sidoo kale maamulka gobolka Togdheer ayaa waxa daba joog ka ah saxaafadaasi kulankan markii uu soo dhamaaday wafdida wasiirada iyo sidoo kale barasaabka gobolka Togdheer ayaa kormeer ku tagay isbitaalka weyn ee magaalada Burco kuwaas oo mid u booqday bukaan jiifka ku sugan waa dhanka kala duwan ee isbitaalka ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Mudane Xamse Maxamed Cabdi oo ka warbixiyay kulankan iyo ujeedku daarnaa iyo waxyaabihii laga wada hadlay ma aragtay ujeedadiisu ay ahayd inay u kuur galaan xaaladda gobolka Togdheer nabadgelyada waxbarashada caafimaadka biyaha horumarka iyaguna waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Maxamed Yuusuf Cabdi iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil oo ka warbixiyay ujeedka socdaalkooda ay ku marayeen gobolada bariga Soomaaliland socodkan aanu ku nimi guud ahaan gobolka Togdheer iyo Daadmareer waa socod ah xogogaal u noqosho arrimaha la xiriira amniga arrimaha la xiriira dhaqaalaha arrimaha la xiriira bulshada iyo arrimaha la xiriira siyaasadda waa afarta arrimood oo qof meel tagaya marka koowaad ay tahay inuu ka eego waana afar arrimood isku xiran haddaan nabadi jirin ma jirayo horumar nooc kasta uu yahay idinkuna noqomaysan saxafiyiin microphone sita waxaan doonaynaa oon hormood ka nahay oo dawladdu u heegan tahay har iyo habeen sidii loo horumarin lahaa nolosha kala duwan qaybaheeda la xiriira ee ugu horeyso biyaha caafimaadka waxbarashada beeraha deegaanka iyo wadooyinka bahada saxaafaddu inay ka qayb qaadato ku saabsan gaar ahaan in qalabkii berigii dhowtooyin ka hor aanu keenay isbitaalka inaanu eegno qalabkii laga shaqeeyay in kale in ummadda qalabkii loogu talagalay in lagu adeego inuu shaqeynayo in kale maalintii hore baa qaarkiin waa joogteen ballan baanu la galay inaan alaabta makhaasiin iyo guryaha dhigina in lagu shaqeeyo ummadda loogu shaqeeyo sida arkaysa waxaanu soo marray qalabkii qaar ka mid ah kuwii ugu muhiimsanaa oo aynu ku soo aragnay qaybta bukaan socodka iyo qaybta umulaha waxaa kaloo jirta qaybtan muxuu ahaa qaybo badan oo kale oo dadka lagu eego oo yaalla qalabkii qaar waxay yaalaan qolka wax lagu qalo oo imikada qaliin baa laga soo baxay oo isaga qalabkii la isticmaalayo waxay ilaahay mahadiya in ballankii cusbitaalku qaaday uu ka soo baxay ballankii annagu aanu ummadda u qaadnay dawladda uu ka madax yahay Muuse Biixi Cabdi qalabkii aanu keenay in sidii loogu talagalay lagu shaqeynayo waa Shaakir Cabdi Axmed telefishinka Xorriyo Burco.